deegaanka Mirjicley ee hoostaga degmada Xeraale oo bilihii la soo dhaafay ilaa haatan ay soo gaarayaan qoysas ka soo barakacay degmada Bacadweyne ee bariga gobolka Mudug. Barakacayaashan oo aan haysan hooy iyo toona ayaa maanta ay taariikhdu tahay 7 bisha May waxaa mucaawino joodariyaal ah gaarsiiyay gabdho qurba jooga oo ay hormuud u tahay Seenab Cabdiraxmaan Cabdille. Macallin Bashiir Axmed Maxamed oo wakiil uga ah qurba joogta la baxay deeqdan ayaa maanta gaarsiiyay barakacayaashan oo ku sugan deegaanka Mirjicley. Alxamdulillaah rabbil caalamiin maantay waxaan deeq joodariyaal ah keenay degmada Mirjicley anagoo soo gaarsiinay dadkii barakacay ka soo barakacay degmada Bacadweyne deeqdan waxa bixiyay oo isa kaashaday gabdho qurba jooga oo hormuud u tahay Seenab Cabdiraxmaan Cabdille maantay oo Jimcaha ayaan soo gaarsiinay dadka deegaanka bulshada qaybaheeda kala duwan ayaan ku wareejinay maamulka magaalada iyo dadkii soo barakacay waxaan uga mahadcelinaynaa dadkii deeqdan soo gaarsiiyay bulshada oo walaalahood soo garab istaagay xaaladan culus sidoo kale waxaan baaq u direynaa qurba joogta deegaanka inay iska kaashadaan sidaan oo kale gabdhahaas ay sameeyeen. dhanka kale maamulka deegaanka Mirjicley ee ugu horeeya madaxa arrimaha bulshada deegaanka Mirjicley Mursal Xirsi Cabdi Ayuub Xuseen Maxamed oo kamid ah ururka horumarinta deegaanka Mirjicley iyo qaar kamid ah dadka ka faa'iideystay deeqdan oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay kaalmadan ayagoo mahadcelin iyo duco u diray dadka walaalahooda oo soo garab istaagay. Kan waxa la soo gaarsiiyay deeq joodariyaal ah oo ay soo aruuriyeen gabdho qurba joog ah oo ku sugan dalka dibadiisa kana soo jeeda degmada Xeraale iyo degmooyin kale waxaana soo gaarsiiyay cidii ay soo wakiisheen annaguna ka maamul ahaan waxaan gaarsiinay dadkii qaxootiga ahaa oo ka soo barakacay degmada Bacadweyne oo hadda halkan ku sugan waxaan leenahay cid kasta oo warkaygu gaaro iyo jaalidiyaha dawladda jira dadka halkan hadda ku sugan oo 500 ilaa 600 oo reer u dhaxeeya oo waxa la soo gaarsiiyay ay yihiin wax 80 joodari ah cidii soo dhiibtay waa uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay wax ka khayr badan Ilaahay ugu bedelo hasa ahaatee wax hadda badan oo baahiya ma daboolayaan annaguna waxaan leenahay dadaalkaas la laabo dadkaan baahi badan baa jirta guriyo ma haystaan cunto ma haystaan gogol ma haystaan 80 joodari intii ay ka gaartay yaan ka gaarsiin waxaan noo soo gaaray deeq ka kooban joodariyaal oo loo soo wakiishay ninka la yiraahdo Bashiir Shuuriye oo ka mid ah ururka horumarinta degmada Xeraale deeqdaas waxay ka timid sida naloo sheegay ama aan ku aragnay gabdho qurba joog ah oo ka soo jeeda degmada Xeraale oo ay hormuud u tahay Seenab Cabdiraxmaan Cabdille waxaan leenahay jazakumullahu khayran waa idinka guddoonay deeqdan soo gaarsiiseen annagii oo ah ururka horumarinta iyo maamulkii degmada deegaanka Mirjicley oo isgarab taagan waxaan kaloo baaq u dirayaa oo rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto dadka qurba joogta ah oo u dhashay degmada Bacadweyne iyo degmada Xeraale iyo deegaanka Mirjicley intaba sida gabdhahaas walaalaheena u dhaqmadeen oo uga dhaqmadeen dadkaas qaxootiga ah oo banaanka yaala oo roobkii ku socdo in ay uga soo jawaabaan baahidooda ma dabooli karta Allah horta dabooli kara waxaan leenahay walaalayaal u soo dadaala dadku waa dadkiini qof aad ku hadlaynaysaan ma jiro mid ah aniga dadka qaxootiga ah oo meeshan u soo barakacay deegaankan Mirjicley kana yimid deegaanka Bacadweyne ka yimid walaalaheena Xeraale gabdhaha Seenab Cabdiraxmaan ay madaxda ka tahay deeqda ay soo gaarsiiyeen joodarida sida ilaa 80 joodari wayna soo gaartay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay janno ugu amaal gudo annagana waxaan ku leenahay baahideena ilaahay baa dabooli kara awalna walaalaheena aan u nimidna wayna soo dhaweeyeen baahidii wayna la wadaageen waxna laga hakrada ma jirin alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa weeye wanaag waxaan ahayn lama aan kulmin alxamdulilaahi rabbil caalamiin walaalaheena noo soo gurmaday oo deeqda noo soo dhiiban amaalkooda janno Allah ka dhigo wixii ka dheeriyana waa uga baahannahay oo ayaga karankooda wixii maaragtay walaalaheena ay noo soo dhiibaan annagana Allah noo qadbo. Xuseen Cali Xuseen Sooyaal TV deegaanka Mirjicley.